محمود عاش عبدي هدي أنا هذا الكيجان قلت له magacaygu waa Fatix Faysal Jaamac runtii su'aashan ku weydiinayo waxa weeye imika waxaad ka tidhi madasha ma haysano aqoonsi caalamiya se mudane wasiir waxaa la sheegaa ama qolada koonfurta ay sheegtay in tikada magaalada Berbera iyo Saldhigaba laga saxaxay madaxweynaha hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga laftigiisa qadar lacageed intaanu meesha ka tagin la siiyay xukuumadan madaxweyne farmaajona ay ku hungowday madasha ayada kulli waa joogtay marxaatina waad ka ahayd xoogaan la waatay bulshada Soomaaliland cid heshiiska saxeexday ee lahayd go'aanka kama dambaysta bulshada u cadde heshiiskii maalgashiga dekada ballaarinta dekada Berbera yaa saxeexay waa su'aal jawaabteedoo kooban heshiiska labadaa heshiisba waxaa saxeexday dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ma jiro heshiisyadeena waxay Soomaaliya ka saxeexday waxaa caddaynaya war Soomaaliya waa kuwa qarqarka heshiisyadeena haysta way ka hadleen madaxda hore oo dhami iyagoo le maanu saxiixino maanu ogin markhaatiga kale inuu doonayna waa maxay maxaa naga qulquleysaan wuxuu alfadlu bima shahida al'adaa waxa markhaati kugu filan cadowgaagu wuxuu kaaga marakaco taasaan iyada ayaan kaga baxaya oo madaxweynaha mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan ku salaamayaa Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirkii hore wasiir su'aashan ku weydiinaya waxay tahay dawladda Itoobiya waxaad sheegtay inaad ku maslaxdeen in bayska la bixiyo hase ahaatee warar xogaale waxay sheegayaan in Itoobiya ay halkaasi ciidamadeeda ku tababaranayaan bayska Imaaraadka la siiyay halkaana ciidamada Itoobiya iyo maraakiibtooda ay iman doonaan arrimahaasi waxa ka jira ayaan doonaynaa inaad bulshada u cadayso aad iyo aad u mahadsantahay ninkii dhalinyarada halkaa iga weydiiyey ciidamada Itoobiya saldhigga Berbera ma isticmaali karayaan haddii Imaaraadka imika ay saaxiib noqdeen jawaabteedu waa maya waxa kaliya oo isticmaali kara wadanka Imaaraadka Carabta oo kaliya xataa ma isticmaali karaan heshiiskeenu si cad ugu qeexaya wadamada ay xulufada yihiin xataa ma isticmaali karaan waayo wada hadal dheeraad bay keenaysaa Imaaraadku damco in Sacuudigu la isticmaalo renegotiation baa la sameynaya dib baa loo wada hadlaya way cid qurayna wax kala kareysana ma isticmaali karaan saaxiibtinimada iyo heshiisyadu waa kala nooc Itoobiya saaxiib baynu nahay hase yeeshee waxna waa wada leena waxna waa kala leena tani waa waxaynu inagu gaarka u lahayn waxaan weydiinayaa Maxamuud Xaashi labadii dawladood kala dambeeyay Muuse iyo Siilayo heshiiskan DP World wasiir iyo madaxweyneyaalba way ka hadleen haddana si kala duwan ayuu mid kastaaba madal kala duwan ugu hadlay ma idinkaan isu warhaynin oo midkiinba mar ay saxaafadu qabato ama warar jeedinaya si gaar ah uga hadlaya mise heshiiskan ma waxba ka jirin oo dadkan Soomaaliland baa doonaysa inay ku guubidaan oo aad been ugu sheegtaan taasaan doonaya in cadayso su'aasha arrinta ku saabsan loo jeedayo soo celiyey madaxweynuhu saldhigga hadal buu ka yimi wasiirkuna hadal buu ka yimi diwaanadu intii aanay macakafta loo ku daray inay iska filaan waxaan leeyahay saldhig waa ku celinaya saldhigga magaalada Berbera Imaaraadka siiyey jamhuuriyadda Soomaaliland way kiraysaa waa kow waa qodobaynaya laba kirada lacaga waynaan qaadan una qaadanayo saddex mashaariic horumarineed oo waddadaasi lafdhabar tahay ayaa inoo gudaya waxaan isleeyahay hadalkaasi sumad cad gureeya hadalkii madaxweynehuna sax waa madaxweyne Muuse ulahaa waalid waa kiray sax haddaba culamada fuqahaada muslimiintu aaraada markay mararka qaarkood isu ururiyaan waxay dhahdaan way sharciyaan waa ismarkaa sariye iyo wasiirkii maalin magaalada xaggaa weydiisano lacag ka hadiye intaasaan inaan kaga baxay mudane wasiir sidee bishii 12 ee sanadkii 2017 dowladda federaalka Soomaaliya waxay si toos ah ula wareegtay hawadii Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhaxaysay
isla 28 December sanadkii hore maareeyaha hay'adda duulimaadka Somaliland mudane Rodal wuxuu sheegay markii ay Soomaaliya hawada la wareegaysay inaanay kala tashan haba yaraatee Somaliland isla markaana iyagu diidan yihiin soddonkii sano ugu dambeysay hawada Soomaaliya burburkii hay'adda baa maamuleysay in kawa la yiraahdo oo fadhigeedu Nairobi yahay adigu markii wasiirka ahayd duulista hawada 2015 wada hadaladii Soomaaliya Somaliland ka dhacay Ankara lixdii qodob lagu heshiiyay hordhac ahaa waxa kow ka ahaa in hawada Soomaaliya Somaliland bayskeegu marka hore noqdo in Hargeysa laga maamulo maxay ku dhacday in imika laga maamulo Soomaaliya dawladda Somaliland ay uga heliyeen arrinta hawadu waa mawduuc aad u adag oo aynu ku kala aragti duwanahay Soomaaliya mudanayaal iyo marweyn qarannimaaba ina dhex taala يا قرنيمو هرج يرمى هي وقرنيمو نسكو هاي وحق أينو لنا هاي دل مدح بنام بينو هاي لحنكي وينو يسكو بيري وينو كلاكون وحيليه نجمت باتي لحنكي لبضلو مدح بنام يسكو بيري بينو كوب إيه لحنكي سراكيشي رير وقوي قاعد السومال لان كسو تشير دي انقلاب أيديه وحي موتشينيسي إلى رالك وهين مدوي صدق لبي اللحن كوني سجال بقول لبي اللحن كأفتدي دستورك وين ديني تذكر هيروقوي مركا إنك الشمال لا بينه حل قاعد تذكر هيروقوي قبل إنه رجلي وين ديني أفر ديكا ينادح وين صديق طلال كوبيا سجاشن كي بلشة غير سوماليلاند بينه هدي قبل ذي اللي كان الدون مدح رقمات كذا سياسي جود برعي سوتجي وحنو قوسنين وقرني مدي إني لا صون قلنا كم قريب مدش أمشي شان دستور بينو سماي سنة أفتي شعبي جينا بالواقع بقول كي بس سجاشن يتطبق أيام عديين إنه قاري سوتاعن ليه سوماليا إنتاس أصلا بيشرير تبهشي سينا ودي عمر بميل كشرين والدستور كشة وحي بيس بيسني شارت الرضا يهشي سيرة مد قرى قريب كمان ينسى وحبا ورسكتها وحكله ورمجع الكوشي نمجع ما أنت هيستان معه جمهورية الصومالية أيونكم يدون ما أنت نروح ليه دولة الفدرالية الصومالية معمول قبلي دياله استركت كابكم تشوفوا عشان ما ينسقوها هنا وحاسة إن دحيا أريما ينسقوها هنا هي هودو كمت لكن هود ما هي سنترينه وحينوها ينشري قرمة المدوبي قرمة المدوبي حل يجيب بطرس قالي أيها وحل قامي article resolution ليا 1954 هي واحد لجوك أمي إن هودا دلكي ببرة سوماليا قرمة ميدوبي دفعيه حرب تدري نيروبي لقدقو إكاية UNDP ناي وذا معمولات مدة لقوا هذا اللي السوري وإنه إسكمري وين هشيسكي إسطنبول وهوها سأن سياسي هاي مشروع برسمين لقدقو الله معموله حرب تيسنا السومال عندنا قطوة هرجيسون قط ويكبحه وانو يسكو قبلنا وانو يسكو مروين وهاتينا كما يحوق روناني هاتينا يستيلوين كما يحوق رونادين دي والينو كالهيليو هذه قعنتك وهي قرمنا بدوي وديبي قيبت في هرنعاهي arrimaha adag ee wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ku jiri doona ayay noqon doonaan intaan qarannimadeeda gaadhin arrimaha guddiga u ah ee laga wada hadli doono ayay ka mid tahay waa godob aynu haysano beesha caalam qaramada midoobay Somaliland haddii godob laga galo oo loo abaal gudi waayo nabadda iyo dimuqraadiyadda horumarkay samaysay oo tallaabooyinka kuwa ka mid ah la qaado Somaliland waxay haysataa kaadhadh adag oo ay dhigi karto nabadda iyo wanaagga iyo horumarka ay ku naaloonayso ee ay dunida doonaysay dhinaca wanaagsan oo la shaqayso waxa dhalinyaradeeda iyo da'yarteedu ku qasbanaanayaan inay noqdo in la radicalize gareeyo argagixisada ay ku biiraan dee aynu noqono dhaqankii shaadhka yar aynu qaadano North Korea geeska Afrika ba noqono marka arrimahaasi waa arrimaha inuu hor yaala ma xukuumadda Somaliland ma bixin xukuumadda Axmed Siinaay iyo Tamuuse Biixi midna heshiiska kuma jirto waa layna xoogayday waan arrimaha u baxanayna soo dhacso أبغى قصة وزير واحد دود هذا اللي كنت تهرب مرر بدن الله شاقي إن سلقة ميلتري عن
lacag laga qaaday sanad la laakiin mashaariic horumareed lagu qabanayo mashruucii horeeyay inuu noqonayo wadada isku xidhaysa berbera iyo wajaale mashruuca berbera corridor waxaa loo yiqiin inuu yahay wado madax bannaan oo wadadeena kale ka duwan ayaan dhawad waxaa la dhex dhigay inuu noqonayo wadadeena oo la kabkabayo la yara ballaarinayo negotiationka ku jirteen ma waxaa kula heshiiseen oo dekeda military base-ka inoo siiseen in wadadeenu laynoo ballaariyo mise wado madax bannaan bee waayahay garyaqan gulada aad buu mahadsan waa su-aal aada u fiican dowladda imaaraadka carabta saldhiggii military aynu siinay waxa ugu miisaanka weyn ugu qiimaha badan ee ummad ahaan aynu macaashnay ee siisanay waa waddada hadday dekeddaasi noqoto bilaa waddo 442 milyan d b way gelinaysaa faa'iido male waa ceelaad qoday oo dar looga soo arooraba iyo waddaba aan lahayn sidaasaanu arkayni d b la waddada de inooma dhisay dekeddaynu ku heshiiyey marka waxa weeye dowladda imaaraadka waxaanu ku heshiinay in waddo cusub laynoo sameeyo markii farsamadii la galay ee shaqadii la gudagalay waxaa soo baxday in muxuu ahaa waddada hadda la samayn doonaana waxaan u xaqiijinayaa bulshada somaliland inay waddo cusub tahay berbera corridor waddada hadda la dhisi doonaa sidii wasiirka gaadiidka cirka iyo muxuu ahaayey uu sheegay cabdilaahi abukar waa waddo cusub maaha kabka waa saxay waa waddo cusub laakiin waxaa loo arkay maslaxad in waddadan la qaado qaybteeda sare oo dhan laga faa'iidaysto muxuu ahaayey foundationkii hore waddadu halkay maraysay waayo meelo fara badan deegaanka u dhexeeya berbera iyo muxuu ahaayey hargeysa badankiisu waa buurale iyo dooxyo waxaa la arkay xilligii de ingiriiskana waa la sameeyey xilliyadii dalkii soomaaliyana waa la sameeyey meelo badan oo loo duwo waddo cusub laga sameeya inaanay jiri karin baa la isku qancay farsamo yaqaanadii somaliland iyo imaaraadku waxay isku raaceen in waddo cusub oo meel kale laga sameeya ay dhib badnaanayso sidaa darteed waddadan waddo cusub laga dhigo oo la qaado oo meelaha ay ka daacday dhammaanteedna dib loo dhiso xataa foundationkeeda dee war waa waddo cusub bay noqonaysaa aan saxo aan naaxiyo madaalka cigaar international airports wasiirkii duulistaan ahaa wadhabaha maanta laga sameeye laga duulaa waa dhaba cusub haddana wuxuu ku qotomaa foundationkii hore ee ingiriisku inoo sameeyey 1958 foundationkii waxaa la qaaday leeyaradii hore oo dhan leeyarkii koowaad iyo labaad iyo saddexaad foundationkii baa loo tegay dhagixii baa dib loo habeeyey waar waddada meeshay maraysaa laga faa'iideynayaa foundationkana wixii ka nool waa laga faa'iideynayaa markaa waa waddo cusub sidaasaanu ku heshiinay waana sidii wasiirku sheegay